السلام عليكم كسو دوادا 10 كلو إنجليشة قيبتي 8 قيبود هذا الكأن روادميننا لمبر 5 ayaa mareena markii loo fiiriyo listiga 8 qaybood ee hadalka halkan waxaan rabnaa inaan ku fiirino adverbs hadaba adverbs maxay yihiin Soomaali marka ku micneeno aniga waxaan ficil sifeeyo waay adverbs waxay wax warbixin fara badan ama warbixin dheeraada waxay ka bixiyaan ficilka sidee uga bixiyaan warbixin dheeraada waxay noo sheegayaan how sida uu dhacay ficilka when goorta uu dhacay ficilka where xaguu ka dhacay ficilka goobta ama meesha uu ka dhacay ficilka iyo waxay kale noo sheegayaan how often oo imise jeer ayaa ficilkaas la sameeyaa wax joogto ah mise wax ficil joogto miya oo maalin walba ama si regular loo sameeyo mise waa ficil hal mar dhacayo intaba ayay warbixin ku saabsan ficilka naga siiyaan. They describe more about the verb allaha. So adverbs markuu uu kala baxbaxaa aad buu u kala baxbaxaa anaga si guud ah hadda u fiirinayna example kan fiirinayna waxay waaye waa si general si guud ah rabnaa inaan u fiirino wixii detail ah adiga marka intaan fahamtid adiga raadso baro isku darso xisaabahaada. Alright, so inta waxaa ku qoray 5 eray 1 2 3 4 5 inta kalena way la mid yihiin ama isku group waaye ama isleeyihiin oo qalinka guduudan aan ku qoray. Hadaba erayga koowaad waxa waaye quickly macna ahaantiisa markaan Soomaali ku sheegno waa degdegan waa qayb ka mid ah qaybaha oo kala duwan oo adverb u kala baxo ama ficil sifeeyaha ah waay ficilkan si degdeg ayaa loo sameeyay waxaana lagu dhahaa English adverb of manner amtaas ka soo gaabiyay adverb of manner marka waxay ka kooban qoladan wayna badan yihiin quickly ayaa ka mid ah sida caadigaana ayaga waxay ku dhamaadaan ly adverbs of manner badankooda waxay ku dhamaadaan ly ayaa ugu dambayso quickly si degdeg ah okay slowly si tartiib ah carefully si taxadar leh well tanada ly malaha laakiin way ku jirtaa waxaa soo kale ku jirto fast so intaas waxay noo sheegayaan ficilkan sida uu u dhacay ama loo sameeyay sidee bay ahayd ma si degdeg bay ahayd ma si tartiib bay ahayd ma si taxadar leh ahayd ma si wanaagsan bay ahayd ficilka sida uu dhacay oo dhanba intaas lagu sheegayaa. Alright, tanna today haddaad adiga caadi u taqaanay waxay ka mid tahay hadda qayb ka mid ah adverbs waaye waxayna sheegtaa adverbs of time la waqtiga halkan waqtiga when baa ku soo aragtay so today waa waqti maanta waa waqti yesterday shalay waa waqti tomorrow oo beri ah waa waqti now hadda ah waa waqti then waa mar hore ama hadda kadib iyadana waa waqti so intaan oo dhan adverbs ka mid yihiin si guud ayaana kugu sheegay waa ku kaas adverbs of time ayaa la yiraahdaa halkan adverbs of waxaan ka sheekeynaa where place adverbs of place here halkan weelkan halkan dhig ama halkan ay wax ka dhacaya ama halkan buu ficilka ka dhacaya here outside banaanka guriga banaankiisa ayuu ficilka ka dhacay ama dagaal baa ka dhacay ama buuq baa ka dhacay hadba hooshii ama ficilkii laga sameeyay waa dibadda banaanka wey there markaa leedahay tilmaam baa bixinaysa halkaas waay meeshaas ayay wax ka dhacayaan halkaas howl ka socota ficilka ka dhacaya inside markaa leedahay waa gudaha guriga ayuu ficilka ka dhacay ama dab baa ka dhacay ama waa la isku dagaalay ama buuq baa ka jira ama dad baa degaya ama dad baa guura hadba ficilkii markaas dhacaya sidaas ku tilmaamaysaa waxaana la yiraahdaa adverbs of place waa meesha waxa ka dhacaan goobta waxa ka dhacayaan baa sheegaysaa waxayna ka jawaabaysaa su'aasha ah where the action is happening where. Alright, so midi xigto waxa waa usually waa adverb of hala frequency waxa way wax si joogto loo sameeyo ama lagu soo celceliyo ficilka joogtada loo sameeyo ama ficilka repetition kala oo la soo celceliyo oo mar walba lagu soo celiyo aniga mar walba waa hadlaa anoo hadlaaya aragtaa
soo hadalkayga waa wax soo noqnoqdo oo frequent ah weeye. ficilkaasna waxaan leenahay waa ficil frequent ah. so usually waa caadiyan waxyaabaha ficilka la sameeyo si caadi ah loo sameeyo. subax kasta waa soo kacdaa, waa tukataa, musqushaa gashaa, ardaydeeduna way fahmayaan. waa usual, waa ficil usual loo sameeyo. I usually wake up early in the morning adii kartaa. I usually wake up late in the morning. okay, tan waa si caadiyan waay. and always iyadana waa mar kasta. I always go to school adii kartaa. adiga I always go to work early in the morning. so mar kasta waa ficil joogto ah waay, hal mar ma sameynaysa. sometimes markaa leedahayna waa mararka qaarkood. I sometimes go out and invite myself aan leeyahay aniga. mararka qaarkood waa iscasumaa banaanka aadaa keligay waqtiga qaata jawi. so kuwa marka waxaan leenahay waa adverbs of frequent waay, ficilada lasoo noqnoqdo ama la joogteeyo oo sida joogtaa loo sameeyo. and adverbs of degree ku xigo oo ah very oo aad ah, too oo zaa'id oo xad dhaaf ah, enough oo in ku filan ah, iyo kuwo kaloo la mid ah. intaana waxay noo sheegayaan ficilkan ficil aad u dhacmi ah, ma ficil xad dhaaf oo loo sameeyeyba, ama ficil oo sidii loogu talagalay ah oo enough ah miya. so marka intaas aad ila fahamtay jumladii iyo si loo isticmaalaan fiirinayna kadibna waa arkayna. number 1 jumlada koowaad waxaan dhahnay he runs quickly. quickly waa soo aragnay, waxaan nidhi waa degdeg. he asaga runs wuxuu u ordaa quickly. haddaba waxaa isweydiinaysaa run waa maqashay, waa orod, estas maxay tahay? ficilkan waa ficil joogto loo sameeyo waaye. joogteyntaana waxaa waaye waa degdeg. mar walbuu ordaayo si degdeg oo u ordaa oo wuu dheereeyaa. okay, fast maaha laakiin waa degdeg. degdeg iyo fast markii la speedka ku kala duwan. qofka markuu fast yahay aad buu u ordaa, degdegna waa boobsiinaysaa, wixii boobsiis camal waay. okay, and I am kana waxaa waaye I am studying today. I am aniga studying waxaan baranayaa ama waxbaan baranayaa today maanta meel uma socdo, gurigan joogaa ama kalaaskan aadaya waxbaan baranayaa. waxay doonto ama cashir ha noqoto oo maadiya ama cashir diini ha noqoto. study waa markaa aad wax baranaysid, wax aad hore u aqoonin oo kugu cusub aad baranayso, study garanaysid weeye. so this is the verb and this is the adverb. verbkan oo studyga ah ayaa wuxuu dhacayaa today, maanta dhacaya. so marka waa la sifeynayaa ama warbixin baana laga siinaya oo ah in ficilkan oo maanta dhacayo. waa fahamtaa rajeynaa. number 3 waxaa waaye put the bag here. put dhig the bag boorsada here halkan dhig. qofkiiba u tilmaamaysaa alaabta ku waday ama boorsada meesha dhigayo, waxaa leedahay halkan dhig, xagga maaha, gudaha maaha, banaanka ma, halkan hadda aan tilmaamayo baad dhigaysaa. so marka ficilka waa put way. put the bag here, boorsadan halkan dhig. waa ila fahamtaa rajeynayaa. okay, waana adverb of maxaan replace waaye. and number 4 waxay noqonaysaa she usually cooks dinner. dinner waaye cashada. she iyada usually aadiyanba cooks dinner waxay karisaa dinner. so tanna waa ficil joogto loo sameynayo. estana haddana raadinaysaa maxay tahay leedahay ficilkan ficil joogta loo sameeyaa. haddaba she iyo he markay ficilka isticmaala iyo it ficilka s in lagu daro waa waajib. so marka daas waa intana u aragtay he runs, halkaana u arkaysa cooks. she cooks ala she cook ma dhihi kartid, waa she cooks, she talks, she does, waxaas waa baran doonaa. she usually cooks dinner. iyada caadiyanba cashada iyada ku qor way karsaa. galab kasta ama maqrib walba ayada hawsha iskale. she usually cooks dinner. usually-dan waxay noo sheegaysaa in ficilkan la joogteeyo oo mar walbana soo noqnoqdo oo la sameeyo. qofka sameynayana iyada ay tahay, iyadana waa pronoun hore usoo barnay. so marka iyada si caadiyan oo joogto ah ayay u sameysaa ficilkan
oo ficilkan yahay casho karintaas. ficilka waa karin, maxaa la karinayaa casho. that means waxaa laga yaabaa iyada inayna ku qornaan quraacda ee qadada shaqo ku lahayn, laakiin si kariso ay ku qoran tahay cashada. So marka waxaa lahaa she usually cooks dinner. ayada ayaa cashada mar walba kariso. waa la fahamtay. So halkan oo ugu dambeyso waxaa leenahay the water biyaha is too hot. biyaha aad bay u kulul yihiin. So that means biyahan kuleelkooda waa xad dhaaf, kuleel caadi maaha. kuleel hot ayaa kuleel ah. too markaa ku dartidna waa high, waa zaa'id. si xad dhaaf ayay biyaha u kulul yihiin. that means looma dhawaan karo. cidii u dhawaataa way ku gubanaysaa. So marka waa in la iska ilaaliyaa oo la sugaa intay ka qabo waa 2daas waxay noo sheegtay digriiga meesha heerka uu gaarsiisan yahay ii sheeg kuleelka xad dhaafka ah. So haddaba sentencekan haddaad ku rarsan tahay waxaad leedahay the water biyaha, iyada waa noun, waterka waa biyaha, noun waay. is ayaa marka ficilka noo ah, because annaga waxaan sifeynayna waa ficilka. is waa ficil sifeeyo, waxaan ka wada sorry, is waa ficilkaas oo verb to be waa la ficil caawiyo waay. ficilka naga hadda there's no main verb. halka main verb oo ficil caadi kuma jiro aan naqaano, ama erey ficil kuma jiro. laakiin is haddaa barita waa ficil caawiye ama verb to be. sentence-ka ama jumlada iyada ayaa ficilka matalaysa oo u ah. so biyahan kuleelkooda aad ayay kuleel u yihiin, kuleelkooda waa xad dhaaf. so haddaba intaan haddaa ila fahamtay oo ka faa'iidaysatay, wixii kaloo ziyaado adiga raaso insha Allah isku soo duceyn.